بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada casharkeennii xirfadda xulashada lamaanaha ee noo socday waxaan soo galnay mowduuceennii afaraad oo ku saabsanaa tiirarka xulashada lamaanaha waxaan soo qaadanay diinta qodobka labaad aan rabno in qofka laga assessment gareeyo laga qiimeeyo intaadan guur la gelin waa dabeecaddu waa shay qaali ah oo ku qaali ah xiriirka aadanaha iyo mustaqbalka qof kasta uu ka leeyahay nolosha waxaa la ogyahay in dabeecaddu ay tahay saldhigga horumarka qof kasta oo maanta ku nool waxaana la sheegay qofkii dabeecad wanaagsan leh in uusan ka baqaynin nolol xumo iyo wehel la'aan dabeecaddu waa asad weeye hanti weeye hantidaasoo kuu goysa wax aada u qiimo badan oo ah xiriirka bini'aadanka waxaad ogaataa qofku markuu dhasho ilaa markuu dhinto wuxuu ku dhex nool yahay bulsho ha noqoto qoyskiisa ha noqoto iskuulka ha noqoto dadku shaqada la wadaagi leeyahay ha noqoto aakhirka qoyska uu hogaamiyaha u noqonayo ama uu maamulaha u noqonayso gabadhu mid kastaba ha noqotee dabeecaddu waa saldhigga horumarka qofka bini'aadanka qofkan dabeecad lahayn waxaa lagu sheegay in xiriirkiisu iyo noloshiisu ciriiri ku jirto qofkii dabeecad wanaagsanna inuusan ka baqaynin wehel la'aan in uu rabo in uu noqonayo qof bulshada iyo meeshuu joogaba qiimo ku leh waxaa la sheegay dabeecaddu inay tahay qodobada ugu muhiimsan ee laga doonayo hogaamiyaasha wadamada shirkadaha iyo dhammaan qoysaska maanta loo dhisay qoyska hogaamiyihiisu dabeecad lahayn dabeecaddu waa dhaqan waa hab qofkan qoyskan hogaankiisu dabeecad lahayn si fudud buu u dumaa lannahu dabeecaddu waxay keenaysaa qofku in uu culaysyo badan qaado dabeecad xumadan waxay keenaysaa inuu u dulqaadan waayo waxaan macno lahayn oo uu ka dudo sidaa darteed dabeecaddu waa nolosha iyo nagaadiga qoys kasta oo maanta dhisan sidaa darteed waxaa muhiim ah lamaano kasta oo dabeecad ahaan inuu midka kala fahmo aad iyo aaday muhiim u tahay wuxuu jecel yahay wuxuu necab yahay siduu adduunka u arko siduu u jecel yahay wuxuu labisto wuxuu rabo inuu cuno dookhiisa waxaasoo dhan waa in la isfahmaa dabeecadda qofkan waxa ka xanaajiya waxa caadifadiisa kiciya waxa dejiya waa inaad barataa haddii inta aad sheekaysanaysaan qofkaad dabeecaddiisu ku celin weydo oo ha fahmi weydo hadda beri markaad guri gashaanna isma dabeecad qaban doontaan adinkoo bannaan kala jooga haddaad isfahmi weydaan isdhexgeli weydaan dabeecaddiin isqaban weydo issoo jiidan weydo hadda guri markaa tagtaan oo xoogaa dareenka oo jirkaa jinsigaa u dhammaado hadda waa kala boodaysaan niba meeshiisii ayuu ku noqonayaa sidaa darteed dabeecaddu waa fahamka iyo nagaadiga qoys kasta oo maanta raba inuu dego ama noolba qofka dabeecadda leh marka oo dadadhaqanka leh dadka waa laga jecel yahay waa dabeec ahaan meesha uu jooga aa loo yimaadaa waa loo soo dhowaadaa waxaa lala jecel yahay qofka in loo sheekeeyo waa faraxsan yahay qulubtiisa waa nadiif qofkaan dabeecadda lahaynna waa laga durkaa waa laga fogaadaa waa dabkana waad garanaysaa qofka u soo dhowaado wuu gubayaa sidaa darteed qofka dabeecada xumada ama dabeecaddaba aan lahayn waa dabku gubaya oo ay tahay inaad ka durugto qofka dabeecadda lena waa dugsi dabayshii iyo qoraxdii iyo qabowgii kaa celinaya oo waa loo dhowaadaa oo waa la dugsadaa sidaas ayay muhiim u kala yihiin sidaa darteed dabeecaddu marka maxay tahay dabeecaddu waa habdhaqan uu qofku ku dhego isla markaana la falgala dhammaan hadalkiisa iyo ficilkiisa u fiirso dabeecaddu waa habdhaqan uu qofka la falgala hadalkiisa iyo dabeecaddiisa kaasoo qofku mar walba uu soo bandhigo sida naxariista faraxsanaanta waa baran doonaa dabeecadaha iyo waxyaabaha lagu garto haddaba haddaan kasoo sheekayn dabeecaddu inay qiimo u leedahay qoyska macno weynna ugu fadhido seebaan ku garan karaa qofka dabeecadda xun iyo qofka dabeecadda wanaagsan waa su-aal ka dhalanaysa casharkan laftirkiisa haddaba qofka dabeecadda leh 8 sifo ayaad ku garan kartaa 8 nooc oo dabeecado oo calaamo aad ku garan karto qofka dabeecadda leh ayaan raba inaan kula sheekaleeyo midda koowaad maxay tahay waa dad la socodka haddaad aragto qof dadka la socdo la sheekaysanaya dabeecad buu leeyahay qof gooni oo goosad haddaad aragto oo keligii socda ogow sababbaa jirta uu go'doon u yahay ama ha noqoto xanuun hayo
ama ha noqoto dabeecad xumo. Deganaan caadifadeed baa ka mid ah qofka in caadifadiisu mar walba ay degan tahay. mid ayaan u geli doonaa. Qanaaco nafeed baa ka mid ah. Aaminaad baa ka mid ah qofka inuu naftiisana aaminsan yahay dad kalena aaminsan yahay. Miyirka ka mid ah qofka inuu qof miyir leeyahay degan oo mar walba kaam ah. Waxaa ka mid ah la qabsiga isbedelka. Qofka dabeecadda leh isbedelada iyo dadka kala duwan tartiib buu la falgalaa. dabeecadiisa ayaa soo jiidanaysa dadkaas. Hoggaansanaan wax alla wixii dhaca ama Ilaahay keenay qofkaas uu hoggaansan yahay mana ka hor yimaado. Waxaa u dambeeya furnaan waji iyo muuso oo ah qof mar walba faraxsan oo happy ah inuu yahay oo ku faraxsan wixii Ilaahay siiyey. waxaanu gelaynaa marka saddexda u horeysan gelaynaa oo ah dalla socodka, miyirka iyo deganaanta caadifadeed ee qofka dabeecadda leh lagu garto. Xirfadda la socodku waa qofka ku dhex jira isku wadi kara dadka isku wadi kara, naxariista badan, had iyo jeer dad wadka badan, ku dhex jirka badan, markuu yimaado lagu soo xoomo, loo jecel yahay in loo soo dhawaado, hadalkiisu hadal dadka qalbiga u qaboojinaya yahay. Qofkaas xirfadda la socodku waa qofka noocaas ah, waa qofka bulshada wada, dhexda uga jira, meeshii dhalinyaradu isugu timaado ama duqeydi isugu timaado ama gabdhuhu isugu yimaadaan oo bulsho wad kale oo sheekeyahanka ah oo dadka markuu yimaado dabeecadda soo jiidanayso oo naxariista badan. Fahmaysa? Waa calaamad ka mid ah waa xirfadda dalla socodka ee qofka dabeecadda leh. Haddaa aragto qof markuu yimaado laga cararayo oo dadku ka durkayaan ama meel gaara fariisanaya oo bulsho u dhexgeli karin, qofkaasu dabeecad ma hayee meel ku qoro. Qodobka labaad oo ah miyirka. Qofka dabeecadda waxaa lagu gartaa miyirka iyo sidoo hawsha u hayo una soo kala horumarinayo. Tusaale ahaan qofka dabeecadda waxaa lagu yaqaanaa hawl buu qabanayaa ama hawl baa kala dhaxaysa, sida ay tahay ayuu u qabanayaa. Mashaakilaadka imaanaya sida ay u kala horeeyaan ayuu u xalinayaa asagoo oodan ka dareemin stress iyo isku buuq iyo walaal midna aad ka dareemin. Ayaa waxaad arkaysaa mashaakilada weyn soo wajahay tartiib intuu miirsado oo tartiibtiisa u wado ayaad arkaysaa asagoo tartiib u xilibaya. Laakiin qofkaan miyirka lahayn inuu xalliyo iska daayo wax yaroo pressure markay soo fuulaan waa la boodaya, wejiga dhan baa kuusamaya, indhuhu taagaya, stresska ka muuqanaya, buuq isku furaya. Halka waxaad ka garanaysaa miyirku inuu yahay waxyaabaha lagu garto qofka dabeecadda leh. Miyirku waa shay qiimo badan oo qofku inuu shaqooyinka loo diray si isugu xigaan u qabto isla markaana sida ugu fiican uu dhammaystiro. Qofka miyirka leh qof fudud maaha, qof boodbooda maaha, qof sarfadeed la maaha, waa qof wuxuu samaynayo si sax ah u fahamsan iyo meesha ku sameynaya. Deganaan caadifadeed. Deganaan caadifadeed maxaan uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa qofka dareenkiisa iyo markuu mashaakilaadka adduunka soo wajahaan sida uu xaaladda dhacda u qiimeeyo. Qaar baa markii xaalad ku dhacda boodbooda, marka caadifadooda la kaca, shucuurtooda soo bandhiga. Qofka dabeecadda leh laakiin waxa waa fiiriyaa si fiican buu uga fakeraa caadifadiisa iyo xaaladda markaas ma kiciso, deganaan buu ku qaabilaa. sidaa darteed qofka waxaa soo maraya xaalad ama dhacdo wuxuu si degan uga jawaabaa dhacdadaas ayuu uga jawaabaa. waa qofka deganaanta caadifadeed iska leh. Qofka dhacdooyinka la wareera ee markaba isagoon hubsan la booda inta badan waxbuu halleeyaa oo sii xumeeyaa. Ma lahan deganaan caadifadeed. Hawl baa ku soo martay, hawshii adoon hubsan meeshay ka timid, mashaakilkan cidda keentay yaad la boodi, markaasaa qofaad dembi lahayn baad dusha uga dhacday, marka dhibaataad abuuraysaa. Marka dabeecadda wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa in wax la hubsado, inaad kontroolka caadifadaada, celin kartid naftaada waqtiyada weliba ay xanaaqsan tahay ama mashaakilaad soo maraan inaad celin kartid baa laga rabaa. Marka saddexdaan qodob ee dalla socodka, miyirka iyo deganaanta caadifadeed waxay ka mid yihiin hababka lagu garto qofka dabeecadda leh. Qofka intaa ku aragto dabeecadiisa at least waa wanaagsan tahay. Qofkaad ka weydo xirfadaha dalla socodka oo gooni socodka, miyir ka weydo emotionalkiisu inuu iska kacsan yahay oo iska buuqaya, dabeecad ha ku tirinin. Waa inaad hoosta ka xariiqdaa in aad qof dabeecad fiican raaxsatid.